madaxweyne farmaajo ayaa xalay magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya waa nin ceenkee ah ra'iisul wasaaraha cusub maxay yihiin caqabadaha horyaala ra'iisul wasaaraha cusub waa maxay shaqada hortaala iyo doorka xukuumaddiisa warbixin kooban aan ku eegi doonaa waa kuma ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya xalay uu magacaabay madaxweyne farmaajo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya wuxuuna u magacaabay Maxamed Xuseen Roble maxamed oo ah 57 sano jir ayuu madaxweyne farmaajo sheegay inuu ku soo xushay aqoon way aragnimo karti inuu u leeyahay si ambaqaadida dadaalada dib u dhiska dawladeed iyo horumarinta qorshayaasha qaranka maxamed xuseen roble haddii uu helo kalsoonida baarlamaanka waxa uu la wareegi doonaa xafiis uu baneeyay ra'iisul wasaarihi asaga shaqada kaga horeeyay xasan cali kheyre kaas oo 25 July oo guddoonka baarlamaanka Soomaaliya sheegeen in kalsoonida ay kala laabteen Masar Roble waxa uu haystaa 143 maalmood intaas oo ku eg muddo xileedka hay'adaha dawladda gaar ahaan madaxweyne farmaajo waxaana loogu fadhiyaa inuu soo dhiso waa haddii ay meel mariyaan baarlamaanka xukuumad qabata doorasho dadban ay ku heshiiyeen dawladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada sida ku cad heshiiskii shalay ee lagu gaaray Muqdisho bayaanka lagu magacaabay Roble ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayuu madaxweyne farmaajo ku faray in si degdeg ah ku soo dhiso xukuumad tayo leh dalka lagu horseedi karta dhaqangelinta doorasho dadaal badan la geliyay sida lagu xoojin karo guulaha laga gaaray amniga dib u dhiska ciidanka iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha baahinta adeegyada aasaasiga ah iyo kamir dhalinta dadaalada dawladdu ay ku jirto iyo dagaalka ka dhanka xagjirnimada iyo musuqmaasuqa haddaba waa qof ceenkee ah وانا كما محمد حسين روبلي محمد حسين روبلي وانجينير كل شيء مقالة هوبي بشي أكتوبر سنة كمركوها كون سقال بقول لحدنا سدح دي وانا أبرد على شن عرورة وحوح برشيدي أساسي جها وكسو قاتم مقالة مقدشة هالكعاصو مركي الدنبي وكجب حكى معدة ومدة كلية انجينيرية سنة كمركوها كون سقال بقول سقاشن كيب محمد حسين روبلي markii uu dalka ka dhacayeen dagaalada sokeeye waxa uu ku biiray 10 kun ee qof ee u qaxay dalka dibadiisa oo ay suurto gashay inuu galo dalka Sweden halkaas oo waqtigiisa ugu badnaa uu ku noolaa sanadkii markuu ahaa 2000 ayuu jaamacad ku taalay Stockholm ka qaatay shahaadada labaad ee heerka jaamacadda Master Degree maxamed wuxuu markaas wixii ka dambeeyay ka howlgalayay dalal ay ku jirto Soomaaliya Kenya Tanzania iyo Sweden asagoo dhowr iyo 10 sano la soo shaqeynaya hay'ad qaramada midowga oo qaabilsan arrimaha shaqaaleysiinta sida ku cad nuqul ka mid ah CV-giisa oo la soo gaarsiiyay idaacadda Risaala wuxuu ku hadlaa 5 luqadood oo kala ah luqadda Soomaaliga ah oo luqadda hooyo Ingiriiska Sweden Carabi iyo Talyaani maxamed xuseen roble waa nin aan hore loogu aqoonin arrimaha siyaasadda Soomaaliya hase yeeshee waxa uu ka soo shaqeeyay arrimaha la xiriira injineernimada iyo in waqtigiisa ugu badnaa la soo shaqeeyay hay'adda qaramada midoobay ee dhanka shaqaalaha u qaabilsan maxamed wuxuu siyaasadda ku soo biiriyay xilli doorashada ay wadanka ay ku soo food leedahay arintaas oo noqon karta shaqada ugu weyn ee looga fadhiyo xukuumadda uu soo dhisi doono in dalka ay gaarsiiso doorasho dadban oo hadda dhinacyada ay ku heshiiyeen wuxuuna ku soo aadayay xilli madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyadu ay ku heshiiyeen in doorasho dadban dalka ay ka dhacdo doorashadaas oo bilaaban doonta bisha November ee foodan ugu soo hayso waa maxay caqabadaha horyaala ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble su'aashaas ayaan waxaan hordhigay falanqeeya arrimaha siyaasadda Cabdirashiid Macalin Gaas walaal Maxamed Xuseen Roble waa nin la yaqaano من حركة دول كمان لقى يقام وأنا اللي يقام deegaan ahaan meeshuu ka soo jeedo iyo meesha uu ku dhashay takhasuskiisu waxa uu yahay inta badan la yaqaan way intaan ka aqaano Maxamed Xuseen Roble Duul waa nin Soomaali horta Soomaalinimadu marka dad badan baa sheegto oo aqaayada Soomaali ka ah laakiin waa nin Soomaali oo dhalada oo Soomaalidii la yaqaanay azaliga ayda gobol ahaan wuxuu ka soo jeedaa Mudug Gaalkacyo asal ahaan halkaas ka soo jeeda waa nin caalamka meelo badan ka soo shaqeeyay sida qaramada midoobay hay'adda socdaalka waan u soo shaqeeyay aqoon fiican leh hadii maadi bini aadam uu wax tarayo aqoon maadi oo fiican oo ku filan leh laba jaamacadood buu ka soo qalin jabiyay engineering iyo arrimaha bulshada sida maamulka administration loo yaqaan kala buu ka soo shaqeeyay duuleeyahay shahaadooyinkaas wata way karan waxaan ka rabaa Master Roble dabcan
ma isleedahay xaaladaha cakiran ee dalka uu samata bixin karaa iyo waqtiga kooban ee dowladda u haray oo xaalado karaasta la wajahayo oo doorashadii ay qayb ka tahay ismadihi waan ku kalsoonahay Mr. Roble sida adiguba u xustay Maxamed Xuseen Roble dugul baa horta ninkan la yiraahdo wuu samata bixin karaa dadnimo qof ahaan isaga shakhsiyadiisa intaan ka aqaano iyo aqoon ahaan sidaan u aqaano waa nin daayar oo dadka xifdiga iyo cudurka qabaanay mutacallima soo shaqeeyay dalka iyo dadka iyo deegaan ahaan aqoon u la weeyay annagu marka haddaan ummadda Soomaaliyeed nin guriyo noo dhisayo oo hadda intay lacagna siiyo guriyo noo dhisayo dabaqya ama ilmo noo masaariifayo ma jire waxaan u baahanahay oo taageersan oo garab istaaganahay nin kasta oo Soomaalinimadiisu ay dhab tahay Maxamed Xuseen Soomaalinimada dhabka waa nin ku cusub siyaasadda Soomaaliya oo saaxadda markii ugu horreysay ka soo muuqda marka culays inta la uu la kulmi karaa salada wax kasta oo culus ilaahay baa fududeeya wax kasta oo fududna ilaahay baa fududeeya culayska ilaahay baa keena fudaydkan ilaahay baa keena ila araadallahu shay ay yaqul lahu kun fayakun awoodda ilaahay intaas oo waliba dadka lagu barahayo tartiibta baynal kaafir wa nuuni bay ku siman tahay way ugu dambeyn marka dad badan baa qaba in xilka ra'iisul wasaaraha badi siyaasiyiinta ugu weynaa ugu tunka weynaa lagu xaminayo inay iska diideen maadaama 4 bil ay dawladdu u hartay muddo-xileedkii rasmiga doorashada la aadayo in waqti saas u yar ra'iisul wasaare cusub siyaasadda ku cusub la qabsiga iyo waxa laga filan karo xukuumaddiisa nidaamka aad ka hadlayso waa xisaabta 4-9 ku dhufadeed qoladii kharaasiinta ahayd dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed inuu dego diidanaa ee loo soo adeegsaday dalka iyo dadka iyo diinta يا هذا الله بس أديك سنة لكن أنا وحن كل شيء هذا كمان كل شيء لما يكون كإلهي بقى مأمورة. رئيس الوزراء عصب أيام لما قعبة ساعد كد مركي هشيس لقى جاري دار شدا تعاصب ماشي كسعر سائن وحكى علينا وكل شيء جوانا ذي الحريرة دار شدا صوماليا وحن حد قطع على شقاء كوسابسن سو دسيد حكومة لو فدينه صاد إنه هلو كلسوني ذا برلمان كب وحاصل لوجين فالعلن تكرر لدون تبرلمان كا إنك سكنتني أفر مالين كدب مدحونه مقعبة رئيس الوزراء كعصب ساحد السياسة الصومالية. madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay Maxamed Xuseen Roble u magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si waafaqsan qodobka 9aad ee dastuurka ku meel gaarka ahi wuxuu u magacaabay wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya kadib markii golaha shacabka ay kala laabteen kalsoonida xukuumaddii hore 25kii bisha Luulyo ee 2020 ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa faray ra'iisul wasaare Roble inuu si degdeg ah ku soo dhiso xukuumad tayo leh oo dalka u horseeda inay ka dhaqan geliso doorasho dadaal muuqdana gelisa sidii loo xoojin lahaa guulaha laga gaaray amniga dib u dhiska ciidamada qalabka sida horumarinta kaabiyaasha dhaqaalaha baahinta adeegyada aasaasiga ah kamiro dhalinta dagaalka ka dhanka argagixisada iyo musuqmaasuqa ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed wuxuu faray inay la shaqeeyaan ra'iisul wasaaraha cusub si uu u guto waajibaadkiisa dastuuriga ah ee horyaala ayaa lagu yiri